شعب مقدشو oo aragtiyo kala duwan ka dhigtay sida ay u arkaan qodobadii ka soo baxay shirkadu mareebsan ee gabagabay dadka magaalada Garowe ugu kala aragti duwan heshiiskii doorashada iyo degmadii madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ee shirkaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dowlad goboleedka Jubbaland oo xukuumad kala duwan ku riday askar dil u geystay dad shacab ah dowladda Uganda oo ciidamada gaaray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada ammaanka Zimbabwe oo xabsiga dhigay hogaamiyay mucaaradka dalkaasi iyo Israa'iil oo digniin u dirtay ururka Hamas markale duur wanaagsan dhageystayaal intaad maqasheen waxay haayeen qodobada wararkeena ugu soo saaray anigoo Sheekh Xasan Haruun iyo Cabdi Casiis oo kay رئيس الوزراء ومقعاوة يقولها شعبك أدنما وقتك وحد صوت ونقلت ونقلت بلا حديث دائرة يوضح الله لحرية أربها الدوركتوريكا أيضا حيوان واحد بدلي كلام طبعا أربها لحرية وحنا ورتي قدام به اتباحيا إن تفضل أو مركز قد تاجيا إن الآن رئيس الوزراء سوء أذن هذه النمذي حالي يساعدي كل ريبة نقاط الصومال سياسي عبد الرحمن
aad qabataan shaqo wanaagsan oo si wacan aad u qabataan howlaha la idin diray iyo karaamada howlgalka qaramada ayuu yiri General Awiro oo la hadlayay askarta Soomaaliya maxaa uu sheegay in ciidamadeeda ku taageera qaramada midoobay dhinaca kale sarkaalkana waxa uu sheegay in ciidamada iyo taliyaashoodu ugu digayo in ay markaasi ku xadgudbaan deegaanada iyo shacabka jooga waxaana idinka sugaynaa hawsha la idin diray oo quraas oo ah inaad amni ku soo dabaashaan Soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyay kiiska noocyada badan ee ay geystaan midoobay waxaan idinka digayaa inaad ku dhaqaaqdaan falalka dhalan xuquuqul insaanka iyo waxa shacabkiina iyo dalkiina wadaad ka socotaan waxaan idinka rajaynayaa in halkaasi aad ka wanaagsan doontaan waa inaad dadaashaan si shaqooyinka la idinkaga baahan yahay aad u qabataan General Peter Awiro ayaa waxa uu sidoo kale ku nuuxsaday in dalka Uganda had iyo jeeraala ay garab taagan yihiin Soomaaliya isla markaana amniga Soomaaliya ay kaalin muhiim ah ka ciyaarayaan badmihii bishii July ee dhaaftay ayaa sidoo kale dowladda Uganda waxa ay sheegtay in askari oo ka tirsan ciidamada ay dib u celinayso lama oga ciidamada cusub ee ku soo wajahan Soomaaliya inay soo kale yihiin ciidamada cusub oo ku soo